Nino iyo talabixina xaaladda El Nino ee isbuuclaha ah 28 Sebteembar ilaa 4 Oktoobar ee sanadkan 2023. Toddobada cisho ee soo socota oo ah isbuuca ugu dambeeya bisha Sebteembar iyo isbuuca ugu horeeya bisha Oktoobar ee sanadkan 2023. Waxaan bulshada Soomaaliyeed dalka lagu wargelinayaa inay ka feejignaadaan khatar ay suurtagal tahay inay ka timaado roobab xooggan ee isbuucan la filayo. roobabka la saadaaliyay waxa ay geysan karaan khatar cabirkeedu sareyso. Haddaba bulshooyinka ku dhaqan goboladaasi waa inay taxadar gooni ah ka muujiyaan khatarta fatahaadda iyo daadadka roobka ka imaanaya. Dhammaan gobolada kale ee dalka roobabka loo saadaaliyay waxay geysan karaan khatar cabirkeedu dhexdhexaad tahay. Haddana waxaa habboon in bulshooyinka ku dhaqan goboladaasi inay ka feejignaadaan khatartaas. aad uga feejignaadaan saameynta daadadka roobka ku yeelan karo naftooda iyo hantidooda. Sidoo kale looga digayaa bulshada ku nool goboladaasi inay iska ilaaliyaan togaga biyuhu maraan, taas oo khatar gelin karta naftooda. Sidoo kale waxaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed looga digayaa inaysan deegaamin ama guryo ka dhisan meelaha biyo mareenka ah si ay u badbaadaan naftooda iyo hantidoodaba. Talabixin bulshooyinka miyiga degan waxaa talo lagu siinayaa inay iska karkariyaan biyaha roobka intaysan cabin. 2. waxaa sidoo kale bulshooyinka ku dhaqan webiga hareerihiisa iyo meelaha biyo mareenka ah lagula talinayaa in ay wax kasta oo ay heli karaan iskaga buuxiyaan meelaha webiga uu ka jilicsan yahay si loo yareeyo saameynta khatarta fatahaadda.